qaar ka mid ah saxafiyiinta waaweyn ee Somaliland ayaa waxay xukuumadda ku taageereen xaaladda degdega ee lagu soo rogay qaar ka mid ah deegaanada gobolka Sanaag oo kala ah degmada Garcadag, degmada Celafweyne iyo magaalada Ceergaabo. waxay sheegeen in xukuumaddu tallaabadaas u qaaday si loo sugo ammaanka deegaanadaas oo ay sheegeen muddooyinkii ugu dambeeyay in uu ka jiray falal amni darro, waxayna dhaliileen cid kasta oo ka soo horjeedsatay go'aankaasi xaaladda degdega madaxweynaha Somaliland uu ku saaray deegaanadaasi. waxay sheegeen in ciddii qaranka tudhaalo u haysa ay madaxweynaha ku taageeraan arrinkaasi. Abiib Iimaan Xasan, Xuseen Jaamac Jibriil Xagar, Cabdilaahi Wayab oo arrimahaas ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen dhawaan waxaa la dilay laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada Somaliland kuwaas oo astaan u ahaa ummadda oo dhan iyo qaranka. dadkii dilay ciidamada ayaa ku hawlan, waxaan haddana saxaafadanay taageeraynaa fal kasta iyo tallaabo kasta oo amniga qaranka Somaliland lagu xasilinayo oo ay ciidamada iyo xukuumadba go'aamiyaan. waxaan shacabkana ku baraarujinaynaa in ay isgarab taagaan cid kasta oo nabadgelyada, xasiloonida, horumarka, sharafta iyo jiritaanka Somaliland ka shaqeynaysa. waxaa madaxweynuhu soo saaray go'aan uu bandoo ku soo rogay xukun degdeg ah 3 magaalo oo ka tirsan gobolka Sanaag. siyaabo kala gedisan bay dadku u turjunteen si khaldan in wax la idinku sheega maaha, dad caqli leh ayaynu nahay. waxa weeye 3 magaalo waa goobihii waxa dhacay ka dhaceen iyo meelo ku dhow oo wixii xiriir la yeesheen. waxa loo baahan yahay xasilin baa looga jeedaa in amniga lagu xasiliyo. golayaasha xildhijinta ama baarlamaanka Soomaaliya marka la isu geeyo wakiilada iyo guurtida waxaanu iyagana ku guwaabinaynaa fadhigooda berito in ay dawladda ku taageeraan sidii loo hirgelin lahaa xasilinta nabadgelyada dalka ee aan ka horiman oo fawda dhexdooda laga shaqeysan. mujtamaca waxaan dhalinyarada gaar ahaan ardayda, dhalinyarada, mutacallimka waxaan weydiisanaynaa inay ra'yigooda caynkaas soo bandhigaan oo ay ku soo bandhigaan media oo ay isticmaalaan social media oo ay mowduucan aanu ka hadlayno bal ku discuss gareeyaan oo ku wadaagaan Facebook oo ay TV-yada kala siiyaan aragtidooda ku saabsan amuurta iyada ah. baynu leenahay dhaqankeena inaan ilaalino iyo dadnimadeena iyo waxaynu lahaan jirnay saynu lahaan jirnay meel meediyaalo dee laguma dabadego oo cid eedda hebel baa waxaan lahaayay ka horto dadacse baa taala arrinkaas oo in laga hadlo la daweeyo in laga shaqeeyo mooyaane ma banaana in laga shaqeeyo balaayo kale iyo fidna kale in la abuuro. waxaan markaa anigu leeyahay war wixii dhaqankeenu ahaa iyo saynu u dhaqmi jirnay aan dib ugu noqono oo aynu is eegno Somaliland maanta waxa weeye cadow badan bay leedahay, fara badan baa ku jira. waxaynu u baahanahay dhalinyaro, waayeel, odayaal iyo haweenba inaynu horta garanno danteena maxay noo dana. maanta marka ciidankii qaranka la laayo ee la dilo ee waliba si xun loo dilo soo maaha markaasi in looma jeedo Muuse iyo wax kale. waxa weeye qarankii Somaliland baa loo jeedaa. Muuse Baruus ka tagay cidii Muuse haysatay aad Muuse Baruus u tagay mid kala iman ka maanta doonaya bari fuusho markaad maanta wax kale ku hadasheed biibaa kala ka sheekayso iyo in kaahin baa ka dambeeyay jaacba ka dambeeyay gaadna bari taasoo kala ku haysta. marka anigu waxaan leeyahay war aynu dib isugu noqono oo aynu wixii danteena iyo nabadeena iyo umadnimadeena ku hagaagayso aan ku dadaalno oo aan ka shaqeyno. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa la sheegay inuu mid kamid ah axsaabta qaranka telefoon kula hadlay uu leeyahay marka xaaladaas jirto saasay wax jiraan. waxay ahayd dhawaaq talo wadaag u muuqday. talo wadaagii iyo istixgelintii canaan baaba loo bedelay oo la yiri mataqaanaa odayga dalka miyana kala talinaa miyuu dhag iyo dhaban ku soo dhufto oo waxaas sameeyo. maanta haddii iyadoo dhiig u yaalo ay xukuumadii iyo madaxweynaheedii aynu inagu codkeena ku soo saray ee aynu dooranay ay go'aan qaateen oo la leeyahay dadka gacan ku dhiiglayaasha ha la soo qabto oo la leeyahay amnigii ha la xasiliyo oo la leeyahay wixii qarannimada Somaliland wax u dhimay mataqaanaa talaabada laga qaado ma waxay noqotay iyaduna mid la isku canaanto. sawti shalay ahayd odayga dalka miyaan la xukunaa maanta sidee loo xukumaa markaa oo la yiraahdaa waxa weeye maxaa sida loo yeelaya. gobol ka maarmaa ma jiro, degmo ka maarata ma jirto, tuulo ka maarata ma jirto, milowyo caddo ilaa iyo qaw. waxa weeye gaariga aad 5 subaxnimo ka haysato 5 subaxnimo dambe intaad marayso waxa laga yaabaa dariiqa inaad ku aragto qof geel jira oo istaag ku yidhaa deetna xabad sigaar EDB ku weydiinaya. waa nasiib aynu dheerahay dhulka Soomaalidu ay ku nooshahay oo dhan, waa nabadgelyo aynu dheerahay dhulka Soomaalidu ay ku nooshahay oo dhan, waa qiimo aynu dheerahay Soomaalida oo dhan.
intaasi oo dhan waxa dad aan jeclayn baa jira, dad aan ku faraxsanayn baa jira, dad aan raali ka ahayn baa jira. Qaar inaga kamid ah ay soo dhex marayaan, qaar inaga kamid ah ay fariintoodu ka imanaysa. Waxaan soo jeedinaynaa haddii aan nahay odayaashii warbaahinta raqba waa ku rageede waqti Ramadaan baa inagu soo socdo, waqti fadli badan, waqti adag baa inagu soo socdo oo loo baahan yahay cibaadadii iyo dhaqankii wanaagsanaa iyo noloshii. Ummadda Soomaaliland ha ogaato qofka ibn aadamka dhiigiisu inuu xaaraan yahay, sida qofka ibn aadamka Ilaahay u karaameeyay ha ogaato. Inta wax ka maqan yihiin ha is xakamayso oo iyaguna salka ha dhigaan. Inta wax ku maqan yihiin ha ogaadeen in xagga Ilaahay iyo xagga ummadda dhexdeedaba ay dambi faraha kula jiraan. Luqmaan Maxamed Faarax, Bulsho TV, Hargeysa.